iyadoo maalintii shalay uu dalka si rasmi ah uga bilowday ololaha xisbiyada qaranka Soomaaliland ee u tartamaya madaxtinimada Soomaaliland ayaa waxaa maanta kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee magaalada Ceergaabo isugu soo baxeen beerta xurriyadda ee magaalada Ceergaabo iyagoo ka hor intii aanay halkaasi soo gaadhin shaariicada waaweyn ee magaaladaasi socod iyo waliba baabuur ku soo maray taageerayaashan ayaa ku labisnaa astaanta muuqa dheer ee xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee kulmiye waxayna aakhirkii isugu soo barashubteen barkulankooda ahaa beerta xurriyadda ee magaalada Ceergaabo ugu horreynna waxaa hadalka isaga daba maray gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax xildhibaano iyo xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan kuwaasi oo bulshada halkaasi isugu soo baxday u soo bandhigay waxqabadka xisbigooda haddii uu talada dalka ku guuleysto walaalayaal xisbiga kulmiye wuxuu caan ku yahay waxqabadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano uu xilka hayay 19 sano ee ka horeeyay aan la qaban ayaa xisbiga kulmiye ku tallaabsaday guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaanna gobolka Sanaag kulmiye waxaynu nahay xisbigii xisbiyada xisbi muxaafida baynu nahay xisbi dul badan baynu nahay ayada waxba kuma lihin shaqaaqada waxba kuma lihin waynu dul qaadanaynaa kulmiye inaga waxbuu inoo qabtay qabyaalad ku dooran mayna wax qabad baynu ku doorananaa musharaxeenu waa Muuse Biixi Cabdi waxaynu ku doorananaa waynu ku raacnay barnaamijkiisa siyaasadeed ee kala duwan ee 7 qodob ka kooban 7 tiir ka kooban haddaan wax yar idinka sheego ka ugu muhiimsan waxa weeye ka arrimaha bulshada ka nabadgelyada garsoorka iyo cadaaladda waxaan u malaynayaa Muuse Biixi uma baahna maanta in la sharaxo waayo wuxuu yahayba waynu aragnay waa nin mujaahida waa nin soo shaqeeyay waa nin ruug cadaa dardaarmayna inaynu nahay xisbigii xisbiyada ugu dacweynaa inaynu dulqaad muujinno wax kastoo inala kulmo waxaynu isku ognahay inaynu samir iyo dulqaad muujinno xisbigan insha Allah biidnillah wuu soo bixi doonaaye yaanu idin sheegin yaa dhaqaatiirta waa wayn dhisay wadada Ceergaabo waa garanaysaan tagtuyna ma ima jirin tagsiguyna ma ima jirin meel xidhan bay albaab xidhan isbitaalka waxa kamid ah guud ahaan waxqabadka marka xisbiga kulmiye uu ka hirgeliyay gobolka Sanaag iyo guud ahaan degmooyinka iyo xarumaha dalka oo dhan kulmiye wuxuu ku hogaaminayaa waxqabad la taaban karo kulmiye aynu nahay Muuse aynu nahay kaarka iyo codkii xisbigii aynu shalay dooranay baynu maantana rabnaa inaynu dib u dooranno xisbiga walaalaheena ee inala tartamaya ee wadani in badan xisbiga kulmiye wuxuu ku duraa waa xisbi laba reera waa jaagaan baa heshiisay jeegaantu waxa weeye waa 7 kalar ma aha 2 kalar maaha taageerayaasha xisbiga kulmiye ee soo jireenka ahaa inaanay dhegaysanin durbaanada gaagaaban ee ay la akhriyayo ee meelaha kale laga tumayo xisbigooda ku adkaystaan xisbiga wadani waxba oran mayne waa xisbi 3 jira waliba waxa barbaariyay kulmiye soo saaray oo xisbiyadii kale uga hiiriyay waa caasi waaliday weeye maanta hadduu naga ila shiido waa nin waalidkiisa caasiyay u dulqaata gudoomiyaha kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag xildhibaan Ibraahim Caraali Cabdi Ruush iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa labadooduba halkaasi ka soo bandhigay qorshaha xisbiga kulmiye ee ku wajahan hanashada hogaaminta talada dalka Soomaaliland waxyaabihii lagu qiimeyn jiray xafladaha waxay kulansatay tiro iyo tayo iyo tusmo waa xaflad 3 qodob kulansatay oo saaka markii aan arkay baabuurka waxaan kaga soo degay meel aan kilomitir ka yarayn weeyaan xisbigani wuxuu qabtay baa muuqanayo oo horteena yaala waa xisbi curada sida uu sheegay Caaqil Axmed Dafac curadu wuxuu uga jeedaa mala dhalinyaradu garan mayse waa xisbi shirraba waxa ay labada xisbiye kale ma qireen Muuse wuxuu naga yaqaanaa dalka iyo dadka mar hadduu labada idin ka yaqaano nin dal iyo dad yaqaano baa dadqi kara kulmiye wax weyn waa xisbi qaangaara waxaynu u baahannahay maalin kasta oo aynu halka ka isugu nimaadno oo ololaha doorashadu ay dhacdo inaan sidaa nabadgelyada waliba u sii adkaysaan oo si weyn oo miisaan leh nabadgelyada u adkaysaan barkad maxamuud gedi bulsha TV magaalada Ceergaabo